بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته آد بإني سلامني ولا لها نروح على الملك صدى فيها الدنيا أد كجوكتين هل كان ما أنتوا عن كوده فرينا برنامج بلارن أو دنيا بدن تابانية من نلاشي هذا ما هلك كسب بالعبنتي يهلك عيمات الجوكتو وحنوجو مرتئة لبقى قهيان أو كل دقن مجال ندربه أما أول شيء ديجان كان حتى عن كسوجنا هاي نور حسن جامع حلدبان كترسن دولة ديجان كسوماليدا أيوة عبد الحميد آدن موسى بارئ أرمها برشدة أيان هل كان سؤاله دور عن كوي دين دونا وحلا إنها مركو رسول هذا وندون هاي وانا ما صنتها سودو وندون هاي أب أنا كل ما صنتها ولا على دخن horta waad maadsan tahay kulli bulshadu waxay naga sugaysaa barnaamijkan xalay u soo bandhignay inaan waxa qurux badan marka aan ka siirno suurad aan ka siino maanta kulankeena yaro si ku meel gaar aan u sii kulanayna ama dhow meel rasmi oo noqon doono suurada markay barnaamijku dadku ay helaan bay barnaamijku ku taxanaan doonaa marka ujeedada aan leenahay waxa weeyaan annagu imka tusal meesha lagu socdo waa Soomaali halkay dunida ka taala maxaa naga si ah waxaan naga siyaasan u sixi doonaa si loo gaaro in waxay la wax kasta wuxuu leeyahay muqaddimaad la hordhac buu leeyahay marka barnaamijkeenan oo Soomaalidu iyo nolosheeda iyo albaxnimadeeda uu u yahay maartay maxaa gundhigu u yahay waxaan oran karnaa waxaan ka bilaabaynaa si aan faham guud loo sameeyo deef Soomaalidu waa bini aadan waa islaam dunidan bay joogtaa marka waxaan ka soo bilaabaynaa barnaamijka nabi aadan iyo dunidan markuu yimid imaanshihi maxaa ka dhashay imaanshaha wixii ka dhashay baa laga soo bilaabay halka markaan aan waxoogaa yaran highlight ka sameeyno ayaa waxa ka dhashay wuxuu ahaa dhaqan bini aadan baa ka dhashay dhaqanka bini aadanka dhaqamadiisu dhaqanku sidee muxuu yahay sidee buu u dhashaa sidee buu u kobcaa sidee buu muxuu ahaa u dumaa waa meelaha maartay inay bulshadu inay fahanto loo baahan yahay dhaqanku soo sameeyay ka bacdi dhaqankii waxa ka dhalanaya waxa la yiraahdo ilbaxnimadii sidee bay maxadhaday u bilaabantaa ay u kobcdaa u hana qaadaa u duntaayada laftirkeedu ilbaxnimada waxa gundhigu ah dawladnimada laftirkeeda dunida bini'aadamku sidoo soo bilowday dawladnimadii hore jiraysay noocee bay ahayd ta imika maartay jirtay noocee bay tahay inta markaas la soo fahanno ayaan waxaan u soo dhaadhacaynaa Soomaalida waan oranaynaa waliba annagoo ku saleynayna hayaankii ilbaxnimada aadamuhu ilbaxnimadaasi jaranjarooyin kala duwan bay soo lahayd marka jaranjarooyinkii ay lahayd oo ka soo bilaabatay ugaarsi iyo qaraabsi imikana maraysa adeeg bixin wax la yiraahdo halka maraysa Soomaalidu stage-yada ilaa iyo 5 iyo 6 stage ah stage-keebay ayay taagan tahay stage-kee baanan rabnaa laftirkeeda inaan fahanno waxyaabo inaan isla falanqaynayno marka Soomaalidii baan u soo dhaadhacaynaa Soomaalidu maxay tahay dhaqankeygu waa sidee halkeebu dhaqankoogu ku biyo shubtaa diinta iyo raadka uu ku leeyahay dhulka ay degan yihiin raadka uu ku leeyahay ummadaha kale u yimaadeen saameynta ay ku yeesheen iyaga iyo noloshoodii hore xoolo dhaqatanimadii iyo raadka ay ku leedahay dabeecadahooga iyo raadka ay ku leeyihiin ummadaha kale waxay ka dhacaan raadka ay ku leeyihiin taama falanqayn doonaa marka intaas la falanqayno ugu dambeyn ayaa waxaan soo dhaadhacaynaa mawduuca kale ka sii hooseeyo ah waxa la yiraahdo isbedelka iyo horumarka ilbaxnimo waa mawduuc ka sii hooseeyo oo dawladnimadii ka sii hoos annagu mushkiladii dawladnimada Soomaalida haysata marka isbedelkii baan galeynaa isbedelka loo baahan yahay iyo horumarka aadamuhu halku ka gaaray annagu halkaan taaganahay Soomaalidu marka maxay sameeyso iyo isbedel la sameyn kartaa horumarna ay keeni kartaa marka si guud sawirka guud uu yeelan doono barnaamijkeena oo taxanaad noqon doono oo bixinay hayaankii ilbaxnimada iyo Soomaalida aanu bixinay aadamaha aan ka mid ka nahay ee tartanka kula jiro halka aan booska aan kaga jiro iyo halka aan tiigsanayno iyo caqabadaha hor jooga iyo qaabka aan uga baxayno iyo shuruudaha loo baahan yahay inaan buuxino waxaaba inta badan ku wareegi doona marka barnaamijka aan oran karno inta badan aqoon-yahanada qaarkood ka dhawaajiyeen laakiin waxyaabaha u baahan tihiin dhalinyarto iyo maartay Soomaalidu ay u baahan yihiin marka inta badan marka dambana aqoon-yahano badan baan barnaamijka ku soo dari doonaa masla kaashanayno laakiin inaan anagu bal hordhici aan noqono maslaha su-aashii oo ahayd soo saaritaankii nabi aadan ee dunidan iyo wixii ka dhashay adoo hoos u yar dhaadhacay
imka waxaad ka bixisay warbixin guud baad ka bixisay barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay iyo halka uu ka bilaabmay iyo halka aan tegto aad baa maasantahay bismillaahir rahmaanir rahiim kulli dad muslimaan nahay anagu markaan analyze ka bixinayno diinteenu samaawiga ee diinta islaamka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu noo keenay tarjumadii iyo fahankii ayna siisay anagu ka duulayna fahanka dadka diin laawayaasha kama duulayna marka fahankeena diiniga samaawiga ee aaminsannahay inaan ku dhaqanno islaam ay tahay marka laga duulo waa aragtida diimaha dadka diimaha aaminsan oo dhan aaminsan yihiin ma lamidna ila aragtida cilmiga iyo aragtida diimaha bay yiraahdeen cilmi maaha waa indhabeele cilmiga saxdii maarta maxay dhahdaa waa cilmiga ilaahay baa cilmiga saxda ah xaqiiqda ah laakiin bini aadanku wax buu sheegtaa marka anagu taa ka duulayna nabi aadan buu ilaahay horta abuuray nabi aadan jannu galiyay jannada waxa la waa lagu tababarayay ma adduunyada markii hore baa loogu tala galay ahayd inuu yimaado laakiin meesha uu ku soo dabarayno godololooyinkiisa ku soo baranayo ayay jannadu ahayd testiga ku soo galay baa la yiraahdaa halka testiga iyo taxaankii jannada ayuu ku soo fashilmay kadib baa la yiri testiga aad ku soo fashilantay baa kugu sugaya adduunyada lagu soo tuuray nabi aadan markaa adduunyada markii ibliis iyagoo wada socda la soo wada tuuray ee dunidani maarta maxay dhahdaa uu ku soo dhacay duni uunan waxba ku aqoon ku soo dhacay markaa nabi aadan halka bay markaa noloshu ka bilaabantay jahli bay ka bilaabaysaa waxba cilmiga ilaahay ee badda ah ayaa markaa kolba bar ay bini aadanku u faydmayay nabi aadan markaa stage markaa wuxuu taagnaa dunidani aan oran karno suura yar ay ahayd oo dunidu wada barwaaqa wax kasta uu yaalo qofku inuu fikiraba uu u baahnayn duni noocaas oo kala ay dunidu ahayd oo qofku waqtiga hore waad garan kartaa imika meelaha aanay la gaarin waa noocaas oo kale xitaa qofku ma baahnayn waxaan oran karnaa in uu geentu daanu geedka fuulo oo muraha ka soo goosto muruhu dhukay wada daadsanaayeen jannadii uu ka baxay suura yar oo musaqaroon laakiin aan lagu tilmaami karin laakiin lagu yar shabihiga suura looga qaadan karo iyo dunidan u ekeyd marka muraha uu qaadanayo inuu cunayay xawayaankan maarta maxay dhahdaa markii dambe uu iska qabsanayay la falgalkii marka uu la falgalayay maarta muxuu ahaa aadamuhu dunidan uu la soo falgalayay ayaa waxa habnololeedii ayaa ka abuurmay marka waqtiyada hore nabi aadan isaga waxa lagu kabayay waxii baa lagu kabayay isagu seriouska uu maray ee diinta iyo waxigu qulqulatooyinka nololeed ay mareen ilaa nabi maxamed laga soo gaaray culimada ayada taa ka hadlaysa wanagu halkaas badda ma galayno laakiin qaybta aan barnaamijkeenu ku saabsan yahay waxa weeyaan nabi aadan laga soo bilaabay ilaa hadda dhaxalkii waxa nabi aadan markii uu isagu ubad dhalay ubadkaasi qoys bay noqdeen qoys marka la dhaafo waxa loo gudbaa darajada kale loo gudbaa waxa weeyaan waa community waa laga sii gudbaa waa bulsho yar bulshada ballaaran society baa leedahay bulsho ballaaran baa la noqonaya waxa loo sii gudbaa bulshada ballaaran marka la noqdo dawlad waxa la ummad baa la noqdaa dunida hadana ummaday sii noqotay qaabka bay u socotay marka nabi aadan waxyaaba ummadahaasi isla falgalkoogii iyo noloshii ay soo marayeen iyo hanaanka ay ku jireen suurad waxay naga siinaysaa halka nimka taagan halkan ka imanaynan aan garano marka waqti dhuku waxyaaba oo biri oo wax bini aadan sameeyay ma oolin dhulka markuu nabi aadan dhamma wax ilaahay sameeyay waxaan dhuka yeelana wax ilaahay sameeyay bini aadan isku dardarsadeeno oo wax ka dhigeen marka saasaan oran karaa waa maasan tahay waxaan rajaynayaa insha Allah jawaabaha aad soo koobi doontiin waqtiga ayaa xaga dambe inaga riixaya Mr. Abdi Hamid su'aasha aan ku weydiinay waxay tahay dhaqanku qaabkeeba u kabca qaabkeebu soo dhintay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore toolo waxaan isdul taagaynaa waxa dhaqan la yiraahdo inaan qeexitaan ka bixino si ay dadku ka fahamsan yihiin dhaqankan aan wixii aan wad ku dhamtaan leenahay aan ka sheegno horta ereyga dhaqan waa si guud baa la yiraahdaa dhaqanka marka kadib wuxuu noqonayaa dhaqanku wuxuu ka leeyahay macnayaal badan buu leeyahay oo wax la yiraahdo waxa jira universal definition oo dadku isla ogyihiin horta ma laha universal definition si guud buu macnaheedu dhaqan universal definition wax la isla aqbalay oo adduunka oo dhan la isla aqbalay oo universal definition ma laha inta badan waxyaabaha arrimaha bulshada laakiin waxyaabo kale toolo waxa jiro dhaqanna caalamiya oo universal noqon karo iminka inaan wax la cuno waa dhaqan universal culture weyn dadka oo dhan Africa Asia wax cunitaanka waa la cunaa
laakiin wixii la cunayo waa kala duwanaanayo ayaa kala duwanaanayo in biyo la cabo laftigeega la cabo iyadoo waa universal culture in la isguursado waa universal culture laakiin qaababkii iyo siyaabihii loo kala guursanayay way kala duwan yihiin marka dhaqanku waxa weeyaan waa way of living gabadhan gaaladu waa habka nool yahay waxa kamida in habkii dharka loo xidhanayay habka loo cunteynayo qaabka dadka loola dhaqmayo qaabka loo shaqeynayo qaabka loo nool yahay ayaa dhaqanku u ballaaranaya marka dhowr qaybood uu leeyahay baan soo qaadanaynaa dhaqanku ilaa 3 qaybood ilaa 2 qaybood waxa jiro wax la yiraahdo dhaqan la taabsan karayo iyo dhaqan aan la taabsan karin dhaqanka la taabsan karayo waxa kamid ah weelashii sawiraantii waxyaabihii materialka ahaa oo dhan waa dhaqan la taabsan karayo waxyaabahan la taabsan karin waxa kamid ah beliefski qofku waxyaabuhu aaminsan yahay diin bay noqon kartaa caqiido kale noqon kartaa waxay noqon kartaa wax isaga u gaar u aaminsan yahay shakhsiyadda ayaa iyaduna dhaqanka kamid ah oo lama taabsan karo oo waxa kale oo jira wax la yiraahdo values and norms marka waxyaabahan values norms ka la yiraahdo meel buu ku saxsanaan karaa meel buu ku khaldanaan karaa waxa halkan tusaale yar oo kooban cunitaanka jaadka inta Itoobiyadan aan joogno meelaha qaar waa khalad meelaha qaarna duca loo arkaaba harar geemka marka joogto harar iyo dardhaba in jaad la iska cuno waa wax normal oo dadku iskala qasbadeen laakiin markaad goonriyo meelo qaar oo Itoobiyada kala tagtid waa jaadkii wuxuu noqonayaa wax mamnuuc u noqonayaa marka waxa la yiraahdaa dhaqanku uu kala duwan yahay it varies uu kala duwan yahay marka loo eego deegaan magaalo xaafad buu ka bilaabmaya wadan saas uu noqonaya oo xaafadaha laftigooga wax xaafadiina caadi ka ah oo xaafadan kala caadi ka ahayn ayaa iska dhici karto marka ereyga dhaqan aad buu ballaaran yahay intaas aan ku soo koobaynaa khaladaadka laga fahmo waxa kamid ah dhaqanku inuu yahay wax marka dhar la xidhanayo oo materialkii uu waxyaabihi kale toolaan dhaqan loo nismeyn baa dhici karto marka inahaas aan ku soo koobaynaa waad mahadsan tahay jazakallahu khayr ustaad nuur su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay waxaad isla taagtay ilbaxnimadu waxa ay tahay ilbaxnimo waxa ay tahay waad mahadsan tahay ilbaxnimo inaan fahnay inaan dhaqanka fahnay ku saabsan tahay kolley walaalkay Cabdixamiid ba si fiican u qeex ana haddaan si yar oo kooban u sheego intaa uu sheego haddaan si yar oo kooban u sheego waxaa la yiraahdaa bulsho dadku dhaqan qof dhaqan ma yeelan karo qoysna dhaqan ma yeelan karo dhaqanku marka waa wax ay bulsho leedahay bulsho dhaqan leh marka bulsho la joogo ayay maartay maxaa dhadayay dhaqanka qoysas isku tagay wixii ka soo baxay baa ayaa la yiraahdaa ya dhaqan yeelan kara iyo ummadaha yeelan kara marka anu waxaan ku qeexi karaa haddaan arag fahankayga ka duulo marka isla fal galaan aadamuhu iyagoo bulsho ah marka isla fal galaan iyagu bulshadii dhexdeedii baa isla fal galaan bulsho meel quraati wada degan marka isla fal galaan deegaankii ay ku noolaayeen la fal galaan natiijada ka dhalata ayaa dhaqan la yiraahdo horta afaan soma natiijada ka dhalata waxay yeelanayaan marka la falgalkii ay deegaankii ku noolaayeen iyo iyagii dhexdeeda xidhiidhkii ka dhaxeeyay isla falgaleen ayaa dhaqan noqonaya marka dhaqankaasi ay bulshada yeelanayaan waxa ka dhalanaya qaabka u fikirayaan qaabka ay u nool yihiin qaabka ay u xiriiraan qaabka ay u ganacsadaan qaabka ay isku maamulaan qaab nolol dhammaan noloshii dhinacyadeedii oo dhan qaabka ay wax u soo saartaan qaabka ay ummadaha kale ula xiriiraan waxaas oo dhan wuxuu ka dhalanayaa waa la falgalka qaybaha waxyaabahan oo dhan ka dhashay bay noqonaysaa marka ilbaxnimadu waxa dhaqanka dhala ilbaxnimada dhaqanka dhala laakiin ilbaxnimadu waxa iyadu noqonaysaa dhaqanka ka ballaaran dhinac marka laga eego laakiin inuu ilbaxnimadu kulley hodhowban iminka waan taataabanaynaa una si cilmiyo marka dambe mawduuca ilbaxnimada iyo halka ka bilaabantay markaan ka hadlayna laakiin maadaama introductory part aan ka hadlayno anu saan u aaminsan yahay bulshooyin kala duwan inay isla falgalaan kawnkana ay la falgalaan natiijada ka imata ayaa ilbaxnimada dhalisaan odhan kara marka dhinaca laga eego maxaa yeelay dhaqankii waxaa yeelaa reer gaara lahaa laakiin waxaan fahmay hadalka anoo ka dhaxay ilbaxnimadu in ay ku hoos jirto dhaqankay ku hoos jirtaa laakiin way ka weynaataa marka dambe way ka weynaataa laakiin asal ahaan maxaa dhala dhaqanka dhala laakiin ilbaxnimo waxay noqonaysaa marka dhaqanno kala duwan la isku darsado waxaan ku soo koobaynaa maadaama islaamna anigu kelmadan aayad suuratul xujuraat aayadda ku jirta
ورب تبارك وتعالى أوليه في محكم تنزيله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا آيات مركان تفاسير أنت بدنا عندنا إنه يا قرآن كان عندنا إنه وهذه جرس ويدين شري إلهي محويري إلهي لتعارفوا إن أذكرتان علماء مركان ويدي واسكرشدو reer hebel marka kala garatid de waad dad isfahmiyo isla noolan karaan noqonaysiin sida yar basiidka ayaana loogu sharxi jiray laakiin cilmiga sociology-ga markii aan wax ka dhigtay ayaa waxaan fahmay bini aadanku inuu horumar sameeyo inuu ilbaxnimo sameeyo inuu isbedel sameeyo aayadani waxa ay ka hadlaysaa seeso ah ya ayuha nas dadow barto loo baahan البحر مين اللي مركب محله بين تضد بالله بهين غير لو ما بعناك ما فهمتي يا أيها إنا جعلناكم محن جاي لي شعوبا وقبائل شعب يا قبيلة مركب كلا شيء الشعب كو حل هذا وادتك اسكو كلتشر كشعب لسلي هذا قبيل كنا وادتك بلاد ريليشن حديد ديجو كده حيه يا قبيلة إلهي بس دعني أبوري وصننك إياه نلاش إلهي وايل جوا أبوري واحد كجواب سألت دالك وده مثال لتعارفوا سأسكو قرتان تعارفوا أنا واحد نجري تعارفك waxaan fahmay tacaarufku contextiga maartay maxaa dhaday sociology marka lagu yeero waxa la yiraahdaa social interaction ka wax la yiraahdaa bulshooyinka isdhaxgalkooda iyo waxa ka dhasha weeyaan waa ilbaxnimo weeyaan marka tacaarufku wuxuu dhalayaa qabiiladii iyo shucuubtii isdhax gashay waxa way isbaranayaan waxa isbaranaya qabiil yaqaan ma aha waxa isbaranaya dhaqamadii waxa isbaranaysa aqoontii ويسجورسني أنا واحد تزوج بنو إرادة ويسجورسني سيدا درت بلوفير صح البحر ماذا الدنيا ده لقى شيء أردن هل كي كهنا قاعدة واحد كهنا قاعدة جين كوبية ده through history أنت تاريخ ده جرتو حبها يا واحد كهنا قاعدة جرتي يا وبية ده دفع عرف يدوه أي كهنا قاعدة محيي له هل كان قفك الدجن واحد من جريب بلشة قلا عصبة ويمنيه ومت قلا يقنع سبا لوجو يمنيه البحر ما يمكن الدنيا ده مركع waxaad u fiirsantay ilaa imika maxaa ugu horumarsan meelaha xeebaha iyo meelaha wabiyada cirifyadooda dadka ku nool buuraha dhexdooda iyo jaakaha dhexdooda nabi aadan sidoo noolaa ilaa imika u nooliyay maxaa yeelay kuwanina wax badila oo dhaqankooda intii ay ku nabi aadan intii ka haystaan bay ilaa imika haystaan wax kale oo dhex galo oo la fal galo oo la tacaarufo aayada meena tadbiiqin laakiin kuwan wabiyada iyo xeebaha ku nooli waxa intaas waa dhaqamo kala duwan baa isugu yimiday waxbay isku darsadeen teknoolajiyad bay isku darsadeen fikir bay isku darsadeen farsamo isku darsadeen waxbuu keenay wixii baa la isku qooshay wuxuu noqday demarta keega macaani ilbaxnimada dunidu ay harsanayso ayay noqotay marka ma raba inaan sidan akademiga u macnayno laakiin qaabay bulshadeenu ay fahmi karto ummad marka isla falgalka waxa ka dhashay bulshooyinka ayaa ilbaxnimo ay ka dhalasay ilbaxnimaduna marka natiijadeedu waxa inta badan ay tahay waxa dhalaysa ummad fadhida البحنمada waxa la sheegay miyigu maarta maxaa dhaday ilbaxnimada lagu ma daro maxaa yeelay iyagu qaabkay u nool yihiin waa qaab yaro qoys bay u nool yihiin community yaro bay u nool yihiin ma practice gareynayaan marka la tacaarufudi laakiin magaalada marka la yimaado ummada kala duwan kala fikir duwan kala aqoon duwan ha marka hodhoobaan markaan sociology-gaan hoos ugu dhaadhacaynan oranayno iyo aragtiyadan kala duwan ay ka qabaan aragtida magaalanimada dabeecadda miyiga dabeecadda baadi magaalada dadka qabiil nidaamka qabiiliga ku nool dadka nidaamka dawladnimada iyo magaalanimada ku nool dabeecadaha ay leeyihiin waxa ka dhasha iyadoo hodhow markaan barnaamijka hoos ugu qoosno ayaan soo dhaadhicin doonaa laakiin si yar oo bulshadu ay fahmi karto ilbaxnimadu waa inay bulshada isdhex gasho wixii ay haysatay fikir iyo aqoon iyo hanti isku darsato isbedel ay samayso oo hana qaado oo nolosha dad maartay u taliya oo mise iyaga la dhageysto ummadda ay noqoto marka sida anagu taa ka duulayno ilbaxnimooyin kala duwan marka dunida soo maray taariikhdii hore ilaa iyo hadda imka la joogo waana wax la isku dhiidhiibo wax qabiil qaarana uu leeyahay maaha wax dawlad gaar ah ay leedahayna maaha wax maartay maxaa dhaday diin gaar ah ay leedahayna maaha waxa weeyaan waa dhaxal bini'aadamuhu leeyahay oo mid soo dhiibay taaba ilbaxnimo la yiraahdo inta soo koob kara si fiican aad iyo aad baa u maasan tahay misano su'aasha aan ku weydiinaya adiga waxay tahay dhalashadii dawladnimada iyo isbedeladii ka dhashay horta dawladnimadu waxay la socotay abuurka bini'aadamka bay la socotay laakiin marxalado kala duwan iyo waxay soo martay siyaabo kala duwan bay u dhalatay dawladnimadu
waxaana keenay in dawlad loo baahdo marka dadkii bini'aadamkii bulshadii meel ku wada noolayd waxay u baahdeen nidaam dawladnimo kala dambayn cadaalad iyo cid ay uga dambeeyaan hawlaha oo sideedaba bulshadu waxa u baahan tahay markay meel bulsho ku nooshahay nidaam ba u baahan tahay marka nidaamkan baa nidaamkii dawladnimada dhalay waxaa jiri jirtay dawlado kala duwan baa dunida soo maray mararka qaar waxaa jiri jiray dawlado aan sidaa caalami u ahayn laakiin intaa ay jireen ka koobnaa oo reer wal ama bulsho wal meel degtaba waxay lahayd qaab nololeed ay iyadu isku xaliso oo waxa la yiraahdo cultural traditionkii dawladnimada dhaqankii dawladnimada ahaa ay dadku ay soo mareen oo odayaha iyo dadka waxgaradka iyo dadku tuhmayaan baa u ahaa dawlad oo ka dambeynay tiiba socotay waxay noqotay dawladnimadan weyn ee maanta la isla yaqaano bay gaadhay marka dawladnimadu marka loo laamo aragtiyada arrimaha bulshada iyo taariikhda ibn khaldun wuxuu aaminsanaa dawladnimadu inay tahay wax dhasho dhintana oo dhamaad leh wuxuu leeyahay dawladnimada waxyaabo aasaasi u ah jira inay jiraan oo marka hore waa inay jirto isir waa inuu jiro dadku waa inay noqdaan dad isir iskugu tagay ama dad hayb iskugu tagay oo hayb midayso si waxa kale oo jiray iyaduna inay diin jirto marka ibn khaldun ma sheegin diintaasi inay noqonayso diin kristan ama mid muslim ama mid hindu ama mid budu marka waa inay jirto diin ay dadku aaminsan yihiin oo samaawiga waa inay jirto waa inay jiraan baahiyo loo baahan karo dawladnimada maxaa dawladnimada loogu baahanaya waa inay jirto baahiyo ay dawladnimadu ka jawaabayso waxyaabo waxaa jiro dawladnimadu ay ku dhimato dawladnimadu way kobocdaa way dhimataa dhammaan nooleed hadda ilbaxii soo maray adduunka dawladihii soo maray waxaa ka mid ah Bersha dawladihii Romanka kuwii kale Italy iyo dawlado waaweyn oo dunida soo maray ka soo taliyay baa jiray laakiin dawladihii Islaamka way baabaan dhamaad bay leeyihiin maxaa kobciyo maxaa dhameeyo marka barnaamijka kulli waxay noqonaysaa mowduuc ballaaran oo in hoos loo sii galo oo laga wada kamid ay noqonaysaa marka dawladnimadu waxa yaabaha aan soo sheegnay baa base oo ama saldhig oo ah in dadku ay wax ku midoobaan uu jiro wax lama taabtaana oo ay dadkaasi ka wada dhaxeeyay wala ilaalsadaan oo waxa iminka tan casriga waxay yiraahdeen waa inuu jiro common interest waxa la yiraahdo dana isku keenay sida iskuulaadkii jidadka dhakhaatiirta hospitaalada waaweyn referaalada oo waxbarashada public infrastructure kodan oo qof shakhsiyan sheegan karin dadka u dhaxeeyo marka dawladnimadu waxay buuxisaa laba shay oo dadku buuxin karin inaad andaad lacagta doonaysid oo maalka doonaysid wada ma samaysan kartid dhakhtarna ma samaysan kartid laakiin dawladnimada ayaa buuxinayso iyo amniga security qofna habeenkii ma ilaalin kartid dadka guryahooga waxa dooni maal hayso laakiin dawladdu baa dadka wada ilaalso loo hoos tagaya marka labada fil bay dawladnimadu buuxisaa siyaabaha u dhimatay iyo siyaabaha u qortayna barnaamijteena dhammaan kaga hadli doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay